oday baa inankiisa ku yidhi aabba intaa oo sanaan masaariif ku siinaye bal maanta ku shilin aabba ii keen buu ku yidhi ku shilin dhididkaagaan rabaa inaan cune ku yaroo ciyaal magaalo weligii shaqo aan arkin aqalka hooyadii un ku koray oo dhinaca baan u dhaafin markaasuu u tegey baa la yidhi hooyadii buu ku yidhi hooya kun shilin siiyo maxaad ka dhigayo anaa u baahan hooyeysii way siisay odaygii aabbihii buu u geeyey intuu nin lacagta soo shaqeeyey iska dhigay buu yidhi aabbo waatan lacagtii hoo uu ka qaado dab hortiisa ka baxayay buu kunkii shilin ku tuuray odaygii markaasuu weliba inankiisiiba hoosta ka yar eego saasuu eegay markaasuu haddana 10 maalmood kadib buu ka yidhi bal beri toolana waan kunkii shilin aabba waan kaa rabaa fariid baaba tahay adigu ye shaqadaaba taqaanaa kun shilin ii keen hooyadii buu ku yar wareego hooyo lacag siiyo maxaad ka dhigay abaan way siisay hooyo moogta hooyo macaan uu keeno uu ka qaado dabkii uu haddana ku tuuray kiina bul maalin muddo kadib uu haddana yidhi bal maantana aabbo fariid baaba noqotee uu tago hooyo kun shilin siiyo war lacagta baryahan aad iga gurto horta halkeed geysaa way runta ma kuu sheega ahaa aabbaa igu yidhi ii soo shaqee anu shaqa ma garanaye isagaan markaa u geeyaa kunka shilin oo muxuu ka dhigaa odaygu lacagta wallaahi dab hortiisa ka baxayo unbuu ku tuuraa isaguna markaasay ku tidhi war lacag la gubo anigu ma hayee orad magaalada u gal odayga waa mithaal yani mathal xataa tafhamuu shaqo tegey dad markaa wuxuu arkay niman aqal dhisaya uu arkay u waraysto maalintii imsaad soo shaqaysaayo caynkaasoo ku shilino uu la shaqo tago aduu wuxuu hawl soo qabanayba uu soo qabtay lacagtii hore lacagtan ma isku qiimaa markaa uu u keenay odaygii aabbo hoo markaasuu yidhi weliba hadal buu raaciyo wuxuu yidhi aabbo lacagta dabka ka ilaali dee nabiga ku sallaya markaasuu yidhi oo maxaa ku jaban buu yidhi haddaan ku tuura kuwii horeba soonigii gubayey ma may aabba tani tii hore way ka duwan tahay tan hee tan waa dhidid baa ku baxay buu yidhi waxaan u soo qaatay mathalkaas shaygan marka uu maal iyo wakti iyo caqli iyo dadaal iyo ragnimo ay kaa gasho ayaa qiimihiisa la gartaa marka diinta dadaalkeega diinta oo dadka la baraa waa dadaal diineed diinta oo dadka loogu soo baraarujiyo loogu yeedhaa waa dadaal diineed adiga lafahaantaada oo salaada jamca aad ku ilaalisaa waa dadaal reerkaaga iyo ubadkaaga oo diinta ilaahay aad ku tarbiyadaysaa kasbi xalaalana aad uga soo shaqaysaa waa jihaad waa dadaal waktigaaga maalkaaga ardayga waktigiisa inuu diinta barto ku bixinaya waa jihaad man kharaja fii طalab اlcilmi fahuwa fii sabiili اllahi xataa yarjica maalkaaga waktigaaga ood wakti yar ka soo goysaa ood ilaahay dartii aad u baxdaa kolba tuulo kolba hayjad kolba miig kolba magaalo aad ilaahay dartii u baxdaa reerkaaga iyo ubadkaagana ay waxay kugu sii sugaan aad uga tagtaa waa dacwad waa jihaad reerkaaga dayac laguma leh lagumana odhan nin baa nebiga u yimid oo yidhi awrkayga maan dabraa mise ilaahay baan u tala saartaa waxau nebigu ku yidhi awrkaaga dabro ilaahayna tala saar markaad baxayso haddaad 4 bilood baxayso haddaad 2 bilood baxayso haddaad bil baxayso haddaad sanad baxayso reerkaaga mas-uuliyad baa kaa saarana waxay biil ka dhiganayeen meel u saar inaad cidlo kaga dhaqaaqdaa caqliguna ma aqbalayo sharciguna ma aqbalayo